ciidamada Somaliland ayaa saaka heertii waa bari la wareegay gacan ku haynta magaalada Tukaraq oo iyadoo dhinaca bari ka xigta magaalada Laascaanood hilaadii inuu jirta 70 kiiloomitir halkaasi oo ay horay ugu sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka Khaatumo oo dhawaan iyaguna halkaasi horay uga la wareegay maamulkii Puntland custom ay ku lahaayeen magaaladaasi dagaal aan khasaare badan geysan ayaana halkaasi subaxnimadii saaka ku dhaxmaray ciidamadaasi Somaliland iyo ciidamada Khaatumo waxaana halkaasi lagu arkiyay cutubyo ka tirsan ciidamada Somaliland kuna sugnaa daafaha magaalada iyo gudaheedaba dadweynaha ku nool magaalada ayaa iyaga wajiyadooda ay ka muuqanaysay walaac weyn iyo waliba hirdanka maamulada ee deegaankaasi ka jira oo muddooyin ka mal noqday mid iyagu isu bedelaya magaaladaasi مسؤولين وهركعوا maamulka gobolka Sool oo ay wehelinayaan taliyaasha ciidamada militariga ayaa iyagu ka hadlay guulaha ay gaadheen deegaamadaasi ay ciidamadoodu gaadheen farasaabka gobolka Sool Maxamed Maxamuud Cali Xaaji Jeeniyare ayaa isagu ku tilmaamay arintani talaabo horumar leh oo maamulkiisu ay qaadeen waxaan maanta joognaa magaalada Tukaraq oo kamid ah magaalada gobolka Laascaanood hadda waxa halkan aan ku sugnaa waxa weeye guriga ay fadhiyeen maleeshiyadii nabadeedka ee Khaatumo alxamdulillaah rabbil caalamiin iyadoo dhibaato ka dhicin bay saaka ka tageen hadii ma jirto nimankaas niman shuftaa bay ahaayeen qurbaha laga adeegsanayo hadda waxa weeye waa dukumeentiga waa guriga madaxweynaha Khaatumo deganaa kuwa warqadii ku cararay markaanagu dadkay waxay ahaayeen dadkayga waxa uu tureynay waadna qabsateen annaga hadba tuulatina qabsataa anagu magaalada uga qaxay mayno waa salaamantii nabadgelyo u baahannahay dadweynaha waxaan leeyahay nabadgelyo ku baahantiin horumar baad u baahantihiin waxa weeye gadoon baad haydeeno meel jabada haystaan jabadina waa isku xoreeyay عليه نبتجرينا جعانة كوكبتا isku soo wada duub oo ciidamada Khaatumo iyagu deegaankaasi ku sugnaa ayaa la sheegayaa inay xilligan u roqaansadeen deegaamada Xudun iyo waliba Buucame halka ay ciidamadii Somaliland iyagu halkaasi ku sugnaana ay si nabadgelyo dib ay ugu soo noqdeen fadhiisimadoodii hore guntiga gunaanadkii gacan ku haynta magaalada Tukaraq ayaa iyadoo xilligan wararkan ka helaynaa ay sheegayaan in haatan ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda maamulka Puntland lama saadaalin karo siyaasadaha ka taagan deegaankaasi Tukaraq oo iyadoo ah magaalo istiraatiiji ah Cabdiqani Xasan Faarax Cabdiqani Gadari telefishinka caalamiga Universal TV magaalada Laascaanood
تاجنا يا كنترول كي تكرقد وي كنترول كي تكرقد بين هذا تاجنا يا شيء يلا لقى صون نقضي قبل بعيدا وقصون نقضي قرن دفاعي هوري لحد الكيان النبي محمد عليه وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بعد السلام عاود سوداء عاود سوداء عاود كان يفوت بشرف الكشكان يعني كده كمان ده علي حقا يعني من كده ايام كلا حكلا كنت رابط قبل احتمالي هاي هواي waad salaamantihiin waadna qabsateen annaga hadba tuulatina qabsataa iyo annagu magaalada uga qaxay mayno waad salaamantihiin nabadgelyaanu u baahannahay wax nabadgelyo la yidhaaho ayaanu u baahannahay halkan waxaan maanta joognaa magaalada Tukaraq oo ka mid ah magaalooyinka gobolka Laascaanood hadda waxa halkan aan ku sugnaa waxa weeye guriga ay fadhiyeen maleeshiyadii nabadeedka Khaatumo الحمد لله رب العالمين iyadoo dhibaato ka dhicin bay saaka ka tageen waxayadoo dhibaato gaadhay ma jirto hadda ciidanka qaranka ki biliiska kiina watubida annagoo madaxdii gobolka ah wax ku sugan nimankaas inma shuftaa bay ahaayeen qurbaha laga adeegsanayo way ka tageen dadkan iyo dalkan toonna awalna ma yahayn magarta dawladii dalkan iyo dadkan malahayd baa timi hadda waxa weeye waa dukumeentigi waa gurigii madaxweynaha Khaatumo deganaa kuwa warqadii ku cararay marka anagu dadkay waxay ahaayeen dalka iyaga waxa uu tureynay haddii xabada dhacdo kor baan u ridaynay dumarka iyaga iyo maatada iyo ardayda iyo meesha joogtay oo niman wax ma garataa oo qurbaha ka yimid dhaqan celis ay qaribeen oo ay been sheegeen haddana anaga meesha waxaan ugu soo dhaweeyay odayaashii deegaanka ee shacabkii iyo dumarkii iyo waxgaradkii marka aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay maanta ka khudbadayno oo nabadgelyo ku imaado hawshaada أحمد محمد حمود سيلايو labada jaran ee ciidanka biliiska iyo ciidanka qaranka oo ciidanka nabad sugidda oo maanta nagu dhigay inaan horu dhaqaaqno dadka ka xoreyno dadka nabadgeedka ay horumarkii iyo waxqabadkii
iyo wax walba noloshiiba ka hor taagan haddii aanu maanta magaalada nimi aniga taliya qayb ahaan waxaa la sheegay ciidankii biliiska joogay gobolkan halkan u joogay Puntland-ta inuu joogaa la sheegayaa wixii yimaada ciidan ahaan isu soo dhiiba biliisku isagu ma kala laha mar walba waxa weeyaan isagu ayayaasha bulshada hawaya sidoodan u hawlgelinaynaa janaka ciidanka biliiskana haddii aan u gudbinaa barada magacadooda wixii aan isu soo dhiibin aanu qabanno waa maxaabiis dagaal lagu qabtay halishay ciidan badan inuu joogo waxaan codsanaynaa ciidanka biliiska ama ciidanka kale ee jooga inay isu soo dhiibaan ciidamada ciidanka askariga isu soo dhiib waayaan ku qaban hadhow suuqa waxa weeye waa maxbuus lagu qabtay dagaal waxaan leenahay isu soo dhiiba oo u kaalaya dawladdiina dadweynaha waxaan leeyahay nabadgelyo aad ku baahantiin horumar baad u baahan tihiin waxa weeye gadoon baad ahaydeen meel jabada haystaa jabadii la isku xoreeyay waxaan leeyahay nabadgelyada gacanada ku qabta la shaqeeya ciidamada soo dhaweeya assalaamu calaykum كويس بوليس waxaanu nahay abadiyihii dadweynaha waynu qaramaynanaa wixii soo dhigi waaya dawladweynu qaranaynaa waynu qabanaynaa askari oo maamulka ka tirsan inoo joogi maayo markaa deganaan Thank you.